afmadow degmada ugu horreysay weeyaan oo Kismaayo markii laga dhigo degmo meesha ku xigta afmadow gobol ahaan marka ma gobolkan Jubbada Hoose ahaayeen mis magac kale lahayd ma Jubbaland baa la dhihi jiray marka Ingiriisku Jubbada Hoose waxa ma jirin Jubbaland baa la dhihi gudoomiye ceelkan waa Fangaale magacan Fangaale muxuu kula baxay luqad ahaan Fangaale ma Soomaali waa mise luqad kale way ceelashan markii hore magacyay lahaayeen markii 1920 hadii laga soo bilaabo xilligii degmanimada loo aqoonsaday degmada Afmadow maanta waxaan marinaa 2024 waa 104 sano way waxa weeyaan 1920 degmay ahayd laakiin marka laga dhigay wali khilaaf jira waayo markii ugu horeysay ceelashan la qoday taariikh ahaan xilligay ahayd la xasuusto ceelasha way jireen waxa weeyaan wadankan markii hore magacan Afmadow ma ceelashan uu ka soo jeedaa mise si kale uu ku baxay magaca anagu warkaasaan ku hayno taariikh ahaan waa magac gabar Afmadow waay gabdhaha ciridka madow waxaan dul joognaa ceelashii degmada Afmadow ee taariikhdeeda halkan ay ka soo bilaabeen waxaad xog naga siisaa ceelashan tiradooda markii ugu horeysay intii ceel ee halkan laga dhisay iyo sidii ay dadka deegaanku ay ugu bilaabeen ceelashan inay deegaamistaan ceelashan waxa weeyaan meeshan magaaladan oo jirin bay ceelal ahaayeen oo daw ahayd xoolaha ka cabaan marka ceelashii markii aan magaaladan dadka degan ama deegaankan dadka degan ceelashan waa u qaybsanaayeen ceelasha qaarna public ah way u dhaxeeyeen oo waxa weeye had misaal gaalow kale wuxuu lahaa iyo muffayle waxay lahayd midna wuxuu lahaa shan dar buu lahaa oo kuwan oo kala sax midna wuxuu lahaa 6 dar sax 5 dar macnaheedu waxa weeyaan reerku jifa ahaan 5 dab buu ahaa marka 5taas loo kala cabay kana 6 buu ahaa kan 6aad waxa weeyaan maamulka dawladda ayaa cidda socotada ah ama dadka kala dheeriga ah martida ah ama meelahan u soo biyo doontay ya ceelka darka iska laha marka laba ceel aad loo isticmaali jiray ahaayeen ceelash inta badan shakhsiyaad baa iska laha oo odayaasha weynaaya dalkan magaca ku laha ayaa laha tal kuwan waa sida kuwan kalena waa labada mid waxa weeyaan ceelkan reer Xaji Cali baa leh Xaji Cali Jidhaye ha ceelka baasha dheer marka la dhaafo af yar ceel la yaraa jiri jiro suldaanka laha marka ceel walba qoys baa laha ama qof baa laha qofkii laha marka dadkiisii maxaa la dhihi jiray dadka u dhale iyo dadkii sii dhaleen ayaa damcan dhaxalka iska leh moogta marka sii dhaxlay marka inta badan labadan ceel waxay ahayn ceelal reerka ka dhaxeeyo oo laakiin madaxa waxa ka ahaa oo lagu ogaa oo wakiil ka ahaa odayaal nabadoono la yaqaan marka ceel walba nabadoonadii dadkii ay dhaleen ba hadda sheeganaya la kuwa kale inta badan waxay ahayn ceelashii oo nin walba uu qotay meeshan ceelashan taariikh ahaan maalintii xoolaha iyo habeenkii waxay u cab jireen maxaa ka galay waayo qof walba wuxuu iska lahaa 1 neef iyo wax la mid ah kii ugu yara 200 neef lahaa marka wad garan kartaa meel kale biyo jireen ma jirin ceelashan hadda meesha ay ka qodan yihiin waa meel lag ah oo biyo badan ay ku jiraan sida hadda muuqaalkan ka arkayno lagtan ma hadday biyaha ku soo fatahay meeshan mise sidan bay ceelashu u dhex yaaleen markasta oo lagta biyowdo biyaha saana u fariistaan marka biyahana fadhiya markay dhamaadaanna biyaha hoose oo ceelka laga cabayo wali hoose jiraan mugta waxay marka qof joogi la qoro ama mataqaana waxooga ka dheer waxa way biyaha soo baxayaan biyo maax ah oo macaan markii ugu horeysay ceelashan la qoday taariikh ahaan xilligay ahayd la xasuusto ceelasha way jireen waxa weeyaan wadankan markii hore qolo la yiraaho dad aan diinta islaamka soo gaarin ilaa diinta mugta xaga ka timid Soomaaliya xaga ka timid waxa weeyaan gobolkan hadda aan joogno iyo gobolkan Gedo labada reer oo u badnaa waxay ahaayeen dadka Soomaalida waxay dhigi jireen gaalamadow waa Booran iyo oba qolol dhaho oba waa wardayda kamid ahayd oba waa iyadana waxay ahaayeen qabiil bay ahaayeen marka deegaankan iyaga deganaa diinna ma lahayn markii eji ajuraanka boqortooyada ajuraan kadib ejigii oo iswata ayaa halka u soo gudbay magac ejiyana lagu soo gudbay magac qabiil lagu soo gudbay qabiil ha u badnaado oo daaroodka u badnaa laakiin ejiya lagu soo gudbay magac ejiya lagu yimid eji wuxuu ka dhashay miyaa isbahaysi lagu dagaalayay boqortooyadii ajuraan lagu diriray iyo eji ku soo baxay marka ejigii magacii ejiga soo kordhay magac ejiya lagu soo gudbay halkan marka dagaalaha ka dhacay dadkii mataqaana obada ahaa iyo oromada nimankii booranta ahaa xagga Gedo iyo halkanba ilaa wajeer ceelal baa ku yaala iyadan sida oo xilliga ay isticmaalayeen qolihii Afmadow iyo wajeer ceelal bay ahaayeen lagtan inta badan meel badan ceelashu hadaba uga yaalaan laakiin meesha ugu biyo badan Afmadow ay ahayd xaggana wajeerna ceelal bay ahayd oo
dhulka raamada marka la qodo biyaha soo baxaya laba halkana waxaa lahayd obaa lahayd oo qolada oba la baxday xaggana waxaa lahaa booran baa lahayd wajeer kulli xoogaa looga qaaday waa lala diriray waa la riixay gadaala loo riixay horaa loo riixay tana river qaarna waa u gudbeen qaarna xagga waxay aadeen mooyaale iyo marsabad ayay u gudbeen marka laakiin qaar badan oo waxa weeyaan muslime dadku isku dhex milmay ilaa dadku mugtahay dadkan diintu ma soo gaarine asal ahaan Soomaali dadka Soomaali isku asal ay ahaayeen magaca la doonto hala kala lahaado ama obaha isku jinsi bay ahaayeen isku Soomaali booran ha sheegtaan dadku asal ahaan jiin ahaan waa ku shitig isku meel laga soo jeeday laakiin diintii waa Soomaalidu markay xagga diinta soo gaartay oo qarni iyo waxyaalaha ay qarniyo ay diinta soo haysatay dagaalkii Axmed Gurey kadib yaa halkaas loo soo gudbay afmadow degmada ugu horeysay weeyaan oo Kismaayo markii laga dhigay degmo meesha ku xigtay afmadow ahayd gobol ahaan marka ma gobolkan Jubbada Hoose ahaayeen mis magac kale lahayd ma Jubbaland baa la dhihi jiray marka Ingiriisku Jubbada Hoose waxa ma jirin Jubbaland baa la dhihi jiray Jubbaland marka waxay ahayd Siyalow iyo Wajeer iyo Gaarisa waxa laga xukumayay Kismaayo Ingiriis hal maamulo Ingiriis u ahaa marka afmadow سنتر أهد أنت وضاء وبحث كسماية حاجة باردير وضاء وبحث حاجة وجير وضاء وبحث مركز أفمو سنتر بأهد إنجليزك دي سيبان جو قدومي دقمة كن يسقال بقولي لو أتنكي هدي لقصو باللعبو حلقي دقمة من الله أقونس دقمة أفدو ما أنت وحمرنا لو كن لاتني أفر وبقول أفر سنوي وحويان كن يسقال بقول لو أتنكي دقمة أهد لكن مركز لقد إيه ولي خلافة جرا وايو كسماية كوني سجال بقول كوني سيدات بقول يسجاشن يشنتي ومركي هشيسك أحمد مجن ولا صحيح ده إنجليزك مركا إيماني هشيس يلا جنا وضياش أنا مركه هشيس وحلاها يعني برتقي وحلاها يعني ممكن يجري سيد برقش هشيس لا هاي والله بقرتي عمانك عمان الدقناد شبهها الصومالية مايا هاي مركا صلقوا وين وحوها زنزبار لكن حيابها أردن وحكولها إنفلوس وجناعسي حمر حتى وكلها magacan afmadow ma ceelashan uu ka soo jeedaa mise si kale uu ku baxaysan magaca anagu warkaasaan ku hayno taariikh ahaan waa magac gabar afmadow waay gabdhaha ciridka madow Soomaalidu waxa way si gooni ah loo jeclaan jiray xilligaas ilaa hadda waan filay Soomaalida gabadha quruxsan oo qurxoon ciridkeeda haduu madow yahay waxa way gabdhaha kale quruxsan way ka sii quruxsanaan jirtay macnaha ciridka madow baa waxay ahayd faan iyo wax lagu faano marka gabar baa ku noolaan jirtay aagan dabcan waqtiyada oo afmadow oo magacaas marka waa quruxdii afka gabdhaha afka madow baa loo yaqaan halkaas ka soo jeeda gudoomiye ceelkan waa Fangaale magacan Fangaale muxuu kula baxay luqad ahaan Fangaale ma Soomaali waa mise luqad kale ceelashan markii hore magacyay lahaayeen markii eji imaanay ka hore magacyay lahaayeen marka magacan Fangaale ma garanay macnihiis xitaa ana ma garanay وعيلك مجال كعب جرتي أول هذا عيلك وحلق لي حام بالسمي البيبة بالو قلي سيستم عصري على قدي سيستم مجال ده لين بيها جارية لكن مركز دميرة لو قدام سنجري دميرها مجال ده دميرة له أيا محل يجري حركوي كحريين ما يوحي وسمى يسمى هلا دميرها لبض ورثان وأي سنة تنك بهالك تنك اللي يراه وأفر حباء يكون ده سنجرت مجال واجي هره مركا مجال جوري كستو عيلك محل وشبي مركا وذنب الوشبي حتى لا هذا وذنب ليه سمر وذنب الوشبي جرين ولا كرسي وذنب الوشبي حوله إنه كعب جرين مجال إنه كعب جرت مركا مجا فان مجال كلا أوجد وينها وكواسة كم مجا دير أو كحول بدنا أو كبية بدنا بيا بدنا سجوا وعلشان لين كان سأقول بيا بدنا لكن سببته وحوي ما دام مجال كعبسي ومجال أنت بدن عيلك وده ولا عبي وها سيا مركا عن نقطة لكن مجال عيلك كله محمد ديرة مركا هذا عبرك أما مترك بيها لو جاري تري حلقاس هي حلقا هذا مكان زوين سيدي ويان بيها سيدي ويان ومحاول مركا عيلكتو تضوان سنة 8 سنة مالها بيها أي كين ويسلكتها على سوى بيها يردان مركا عيلك غير هذا لين كان سنة كان بيها ويلها لا بدن عيل كانوا لما باستعمالنا أمرينا مركا عيلاشا أنت بدن لا استعماله المساجد كانت عيلك لو استعماله كاسوة صرتن بهالك دير هانتوي كنا وحوي برايفت قف با اسكاله كون sidoo kale waay iyana magaalada loo isticmaalaa iyo kuwa kale marka ceylasha sanadkan 3 cilmiya ya biyo ku hareen markii hadda abaartii dhacday waayo 7 sano
lagta ma biyoobin marka waxaa dhacaysaa lagta iyadoo 10 sano ama ka badan ayaan biyoobin ayaa ceelasha la cabi jiray sababtoo ceelasha sida loo cabi jiray si ku duwana loo cabaa waayo wadaan baa lagu cabi jiray maax bay ahayd way socon jirtay laakiin markii matoor la saaro biyo dhan hal mar buu soo saaro biyo aad u badan baa xaddi badan baa soo baxay marka haanta la buuxiyo waxa weeyaan inay soo maaxdaan way markay soo maaxdaan haddana waa la bilaabaya marka biyuhu waxa weeyaan isma gaarayaan laakiin maaxdu waa inay biyaha isgaaraan wadaantu marka waxa kama tarto biyo yar bay soo qaadaysaa markasta wadaan dhinacyada looga rido waxa kama tarayso laakiin matoorku biyo badan buu qaadayaa oo xawli biyo dhan soo dhuuqaya suntahay marka taa waa sabab bay u ahayd sababta kalena waxa weeyaan maadaama biyaha ay yaraanayaan biyaha waa yaraanayaan aagan oo dhan biyihii fadhiyaa yaraanayaan markay biyaha yaraadaan waxaa loo baahan yahay tartiib in loo socdo ceelasha qaarkood geelay waraabsanayaan oo biyaha gadanayaan afmadow iyo deegaanada ku xeeran marka laga sheekaynayo waxaa aad loo xasuustaa inay ka mid yihiin deegaanada lo'da ugu badan laga dhaqdo waxaa jirtay in ceelashan intooda badan darar ay lahaayeen oo xoolaha laga waraabin jiray hadda haddii la casriyey ceelashii oo loo sameeyey tuubooyin iyo solar system iyo mashiino biyaha qaadaya xoolihii qaabkee loo waraabiyaa lo'da ugu muhiimsan inta badan xoolihii horta cabi jiray maba cabaan xoolihii horta way yaraadeen oo sida hore uma badna midda labaadna waxa weeyaan dadkii waraay samaysteen baadiya hadday tagtay meel walba oo tuulo ahayd oo baadiya roobka waqtiyada la daaqi jiray waray laga qotay ilaa halkan iyo xuduudka waa wada qodan yihiin marka dadku inta badan hadda xoolo loo ma arkaysid halkan ooda magaalada lagu maalayo maahe loo kale ma arkaysid sababtoo waxa weeyaan loodii meel kale jirtaa wariyaa u biyeysan wax biyo u baahan tahay ma laha marka waxaa la dhihi karnaa miya baahi baa keenaysa in lo'da deegaankan oo dhan loo soo arooriyo waraa yar baa jira meel oo u dhow magaalada yaa wara ka jireen oo markii jiilaalka jira maadu kala leeyihiin maan jirin laakiin had meel walba war laga qoday marka ceelashani marka hadda waxay waraabiyaa oo keliya miya magaalada iyo geela iyo xoolaha dheeriga ah ama socotada yaa ka caba laakiin xoolihii badnaa ee ka cabi jiray xilligii hore way ka wareegeen habeen iyo maalin cabi jirtay habeen iyo maalin waa la cabi jiray marka wixii waxa weeyaan way is dhimeen lagtan hareeraheeda lagdheera ee degmada afmadow qayb ka mid a marta dadka deegaanku wax beera ah oo iga faa'iideystaan ma jiraan beeraha aad loo tabcadaa lagta nafteeda hadda waxaan arkaysa beeray ahayd meeshaad biyaha fadhiya beero waay laakiin beerihii dhan biyaa gooyeen marka laba meel waa beeraha midna waa adablaha caadiga waa roob cirka ka yimaado keliya iyo markii lagta biyo ayna keenin lagtana waa la beertaa laakiin lagtii labadii sano u dambeeyey deertii iyo gugiba mar allaala markii la beerto beerti baxday biyaha imaadeen waa jareen sanadkii hore deertii hore biyihii yimid oo aan lagta ka dhammaanin iyo gugi haddana ku daray meelihii yaryaraa ee bannaaneed ee beeraha laga tabcadana biyaha gooyeen ma jiraan beero kuwan mooska iyo cambaha iyo noocyadaas mise beerahan kuwan noocee la beeri jiray qudaarta ugu badan waa qare iyo yaanye iyo waxyaalahan yaryar babaayga iyo waxyaalahaas yaryar wax ka weyn ma laha